ما وهرب عسكر فاضي هلا كجب بابا شعب كسوالي وبابا ورارك ما له والبابا حسال لو قد لها يا طيب ما حال ضغين هيا إنا لله وإنا إليه راجعون وروح انا نقول الله وروح انا او بدريها كان الله وحده هالشيء او بدريها محمود ما فضلك أنا بني عوض عالم في ذات كورونا يا ذرة تاريخ سكان الوطن يا رجل ولا ولا يرادو يدو هذا كل جيس ما مقنا صدق قف وكلام مقن نك ملك أنا شلي كده كده شلي قلبتي بالسوهلي صدق قف وكلام ومقي دولة كينيا أنا ولا وداعني عندي جيستين وأشجعني وحنا كلنا شلي مداح دي دقمة الوا كينيا أي قردان أما ملتير هالنقطة أما معمول هالنقطة أنت بوالله كلنا وحنا أشجعني سيدك كلولاي ددنا إن للاي ددنا أي مقيهين إن أيدنتين كلا أنا وروهين ودadka saas yeelayna ay yihiin ciidamada Kenya waxaan niri si degdeg ah jawaab aan idin ka helo waxay noo sheegeen inay haduu Ilaahay idmo oo ninkii DC-ga ahaa wuxuu yiri nimanka saraakiisha aniga ayaa isweydiinayno wixii khawaareedeen waa idin la soo wadaagaynaa sidaas darteed markaas saasna yiraahdeen waan ka soo noqonay bulshadii baan la wadaagnay wixii aan la kulanay ayaan u sheegnay haddana shalay galabtii waxaana la soo gaarsiiyay ninkii meedka ah in la helay waa la soo qaaday waxaa la keenay alwaq hadda waad arkaysaan meeshuu yaalo saddexda kalena weli ma hayo meel walbana waa gaarsiinay aan la wadaagnay labada ugaas soo geliya afku dhaw la wadaagnay dawladda Kenya antaba waa la wadaagnay marka caalamka iyo dawladaha oo dhan inay ogaadaan barnaamijkan inay ogaadaan oo qofkan hadda umeedkiisa aad arkaysaan xaq darro lagu dilay dad kalena ay maqan yihiin marka insha Allah hadda qofkina waa asturaynaa dawladimo laakiin waa la wadaagayna dawladaha oo dhan laakiin gadoomi waxa uu cadeynaysaa inay ciidamada Kenya dileen oo cadeeyo dadka waa cadeynay ma jira hadda aan sheegayna in ciidamada dawladda Kenya ay KDF waa caday oo KDF waa caday taas iyada waana gaarsinay meel walbana waa u sheegnay السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ما سيد. أبصر رمضان ودب. مايا شوف هذا عشان الله جوك. الله بحال هذا عشاوي. وقاسنا. هذا لا ما هذا. هذا لا ما هذا نيو ورسنا. بسم الله. ما معمول كلام مرة قدومي أدوال واحدة. كله. وقدومي. تفعوا هذا. وعن عديننا وعالم مسلم. عن أبن دقنا ميت كاسوك إني. الله ونحرسته. الله شارك. الله ورسماء ما يلعن. waxaan u keenay halkaas cadeyn islaamka caalam muslim in la arko waxa dishay ciidamada kan kala xidhay midkan taagan si bareeracad oo kasse u dishay oo kama ahayn marxuumkaas ilaahay baa og annagana waan ognahay siyaasad ma gelin allah u naxariista waa nin dhalinyaro oo 20 jir oo xoolo jir oo tuulada yaroo degan oo cadeynayna oo ilaahayna ugu ummadana og tahay dhagta waa bariga daraas subaxay tuulada weerartay xabadu horeysay waxa ku dhacday Cabdullaahi Warsama abay aabihiis iyo laba nin oo kale oo dhalinyarana waa afduubatay oo ayadoo jijibisay oo garbaduub u xirtay la tagtay saddex gaari ayna wateen waa ciidamada DF oo Kenya waa cadeyn meedkan waxaan ka soo qaadnay 10 kiiloomitir meel u jirta gudaha Kenya oo kaalingo marka lagu baxo meesha la yiraahdo xuduudka Kenya 10 kiiloomitir meesha la yiraahdo Liverpool aan ka soo qaadnay waxaan idin cadeynaynaa oo nabeen ku sheegaynaa oo Ilaahay ugu dhawaanaynaa buumaha reebeen gogashi joodarina oo isku jiistay is jaayadii
inay ku qaadeen meydkiina ay ku seexiyeen oo meel duura inta dhigeen gobashiisii as guriga ku jiifay inay ku qaadeen oo ku seexiyeen oo ugu tageen waxaan u sheegaynaa marka caalim muslim dawladda Soomaaliya bareera cad inay kiya maalin walba noo disho kuwa horaasaa nooga maqan waad ogtihiin oo ayaga oo mooto iska saaran oo xamaalata ay u dileen kuwa kale masaakiin oo shanjir ay naga dileen hadda koor waa ogtiin buusaar waa ogtiin maalin walba faafadhuun toban ay maalin dileen waxa weeyaa waana banaysatay inaan jahaadna shirkadii hormuud ku ay ku dileen waa ogtiin oo barxadan soo dhigaynay inaan jahaadno la dirno waxaanayna noo bannaan male caalam muslim ma ha arka dawladda Soomaaliya ha aragta السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. قريب نوضح قريب. بسم الله الرحمن الرحيم. شفع عفو دوي. المقعد محمد حسن عبد الله. waxaan sheegaynaa oon cadaynaynaa wax cadayn kadana weeye ninka hadda hortanada yaala oo meydka ah Cabdullaahi warsame abayla weeye aabihii wuu maqan yahay laba nin oo kala maqan waa wiilkii curudka ahaa waxa hadda meydkiisa aan kor taaganahay ilaahay baa qadaray inna lillaah wa inna ilayhi raaji'uun adduunyanaha ama gaar ahaan ummadda muslimka gaar ahaan ummadda Soomaaliyeed waxaan ogeysiinaynaa 24 saac dawladda Kenya dawlad baa hanbaleeyahay sideedaba waxa weeye waa burcad mid dalka u soo duushay waa ayaga dad dalkooda iyo diintooda iyo islaamnimadooda ay fiican tahay baan ahayn waxa weeye dawladda Kenya lagu sheegayo waxay nagu wadaa inay dadka naga iibsato line way ka baxday bad iyo bariba waa dadna yeeshay dawladda Soomaaliyeed waxaan u sheegaynaa haday ayaga nagu wareejiyeen oo inoo soo direen oo inay yiraahdeen laaya hanoo cadeeyna madaxweynaha ummadda Soomaaliyeed ninka isku sheegay la yiraahdo madaxweyne Maxamed Cabdullaahi Farmaajo golihiisa wasiirada haday dal iyo dibad mid ka soo ay joogaan waxaan u sheegaynaa wixii yaalla waxay indhaha ku hayaan weey Falastiin waan ka darannahay waadna arkaysaan gumaad aan geedan noogula gabanin baa habeenii maalin lagu hayaa arag goosan ah oo dhurwaa uu galay baan nahay inta dambana haddaan laga soo gaarin way dabatiraysaa waxaan idin sheegaynaa wax idin dhiban oo dambe dooranaysan ma jiraan xuduudaha la soo buuxiyo ciidamada qalabka sida hal la keeno dalka hal la difaacdo dadkana hal la hanba qabto assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh war maxamed diinu dhiba anigu waxaa la yidhaahdaa dhaqana abayla cilmi wiilka dhintaan adeer u ahay 2016 waxay dileen wiil aniga aan dhalay gaalada ku dishay buusaar haddana shalay ay taariikhdahay 23 bishii sagaalaad wiil kale adeer u ahay dileen kii ila dhashay wiilka dhalayna waa la tagay waana dileen oo marayna xasuuba waa socdaa marka wax beeshiisa loogu talagalay sidoo dagaalku u dhacay eelcadda waa xasuuq oo hurgaanta ugu talagalay inuu ku la xasuuqo ummadda Soomaaliyeed oo beesha gobolka gada degta eelcadda lagu argoosanhayaa xasuuqu u dhiman yahay haddii ay dawlad leenahay dawladda laga soo gaarta haddii muslimiin jiraan muslimiinta laga qabteena suuqaasaan haysto assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh بسم الله waxaan la yiraahdaa magacayga barra qorona ducaale waxaan kor taaganahay waxaan la fiirin karin oo indhaha qaban karin oo bini'aadanimada ogoleyn wax loo soo gurmanahay iyo wax la ogna ma jiraan shacabkii gedo waa kacay shacabkii gedo Kenya waxaan u sheegay maatallayska dawlad ma waa maatallayskaas waan iska celinaynaa gurmadna waa u baahannahay ma baryaytamayna bar dambe Kenyana way arki doontaa wixii aan sameeyna shacabka haddaan nahay gedo way arki doontaa loola soo gurmado wassalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh ubaaskaan u dhiibaya بسم الله الحمد لله رب العالمين إنا لله وإنا إليه راجعون يا الله نهاي وأركيسان ميت كان ماشي يلا نسال الموسين بكية لبضكم يكون تبقى بش طبنات أبريل ودك الصومالي سوق شيء حدود الصومالي يكسوق شيء نين كان وحاوي ونكي كنت اليوم سديدات أو هذا ميت كأترين أو تسوقية هاي أنت يدلين وأنا قرني سانو وحاوي وعمل نبي رانت أما صوب كل شيء وعدد يتقينيهن
kuwana laayeen waa ciidamada Kenya oo militariga weeye gumaad aan loo kala harin oo marna ahayn oo laba ahayn oo joogta ay inuu hayaan waxaan leenahay marka waxaan u sheegaynaa beesha caalamka dawladda Soomaaliya iyo dadka muslimiinta ah waxaan meesha loo arkaysaa meedkan soo nooc uu yahay kuwa kalena meed ba hadda aan ku tirina ayagana ma hayno waxaan leenahay marka dawladda Kenya way nala degan tahay oo waxay tahay Amazon ay kamid tahay oo xadid ay degan tahay oo gudaha Soomaaliya joogtaa marka inay Amazon oo shacabka ay tiraahdo shacabkana ay gumaado wax la qaadan kara ma waxaa kamid ah diyaaradaha oo duqeyta kamid ah oo maartay kor laga soo tuuraayo waxaa kamid ah mataqaanaa teenooyinkii maartay shaqaalihii hormuud ku shaqeynaayo oo lagu gumaado lagu laayay ragii mataqaanaa geeljirta oo markay dib u shitaan geeljirta oo la laaynayo kamid ah safartii kamid ah oo maartay dadkii soo safray baadiyaha oo maartay soo safray kamid ah gumaad aan loo kala harin weeyo waan arkaysaan aniga hadii shacab baan nahay oo meel aan kala xaajoonay meel aan u marna male waxaan leenahay marka dadka waa raaciyadii mas'uuliyad weey anaga waxaan nahay raaciyad baan shacab baan nahay wixii marka hawlaha waxaan lahayn military weey anaga military ma nahay shacab baan nahay marka waxaan leenahay marka anaga shacab madaan nahay shacab awoodiisa waa garanaysaan annaga marka waxaan leenahay arrinkaas arrin naqabato maahan waa arrin dhibaato ah waa arrin falxu weey islaamnimada kuma fiicna Soomaalida kuma fiicna dariisamada kuma fiicna markooda waxaan leenahay dawladda Kenya وأنت الاستدلال دي شوية. النعيمة وهلا عسكرناك. هذه حركة كشف. بابا شعب كسوالي بابا. وراركة ما له والبابا حسال لو قد الهيئتين ما الحال ضغين هيا. إنا لله وإنا إليه راجعون. وروح حرمونا الله. وروح حرم. أو بدوريها كان الله هذا هالشيء. أو بدوريها. محمود ما فضلك أنا بني عمص عالم كي تذكرنا يا أخي درنا تاريخ سكان الوطن يا رب الليل ولا الدولة يرادو يدو هذا كل جيس ما مقنا صدق قف وكلام مقن ninka meedka ana shalay shalay galabtii baa la soo helay saddex qof oo kalena waa maqay dawladda Kenya waa la wadaagnay cidii geysatayna waa u sheegnay waxaan la kulannay shalay madaxdii degmada alwaa Kenya ayagoo dhan ama military ha noqdo ama maamul ha noqdo antaba waa la kulannay waxaan u sheegnay sidii dadka loo laayay dadna in la laayay dadna ay maqan yihiin inay dhinteen in kale aanan war u haynin oo dadka saas yeelayna ay yihiin ciidamada Kenya waxaan nidhi si degdeg ah jawaab aan idinka helno waxay noo sheegeen inay hadduu Ilaahay idmo oo ninkii DC-ga ahaa wuxuu yidhi nimanka saraakiishii aniga ayaa isweydiinayno wixii khawaareedeen waa idinla soo wadaagaynaa sidaas darteed markaas saasna yiraahdeen baan ka soo noqonnay bulshadii baan la wadaagnay wixii aan la kulannay ayaan u sheegnay haddana shalay galabtii waxaana la soo gaarsiiyey ninkii meedka ah in la helay waa la soo qaaday waxaa la keenay alwaq hadda waad arkaysaana meeshuu yaal saddexda kalena weli ma hayo meel walbana waa gaarsiinay waxaan la wadaagay labada ugaas inta soo geliya dawladda federaalka waxaan la wadaagnay dawladda Kenya intaba waa la wadaagnay marka caalamka iyo dawladaha oo dhan inay ogaadaan barnaamijkan inay ogaadaan oo qofkan hadda umeedkiisa aad arkaysaan xaqdarro lagu dilay dad kalena ay maqan yihiin marka insha Allah hadda qofkina waa asturaynaa hadduu Ilaahay idmo laakiin waan la wadaagaynaa dawladaha oo dhan laakiin gadoomiye waxa uu cadeynaysaa inay ciidamada Kenya dileen oo cadeeyo dadka waa cadeynay maxaa jira hadda aan sheegayna in ciidamada dawladda Kenya ay KDF way caddahay oo KDF way caddahay taas iyada waana gaarsiinay meel walbana waa u sheegnay والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ما شيء أبصر رمضان ودب مايا شوك هذا عشان هذا شوك
هذا محا ودي عشاوي وقاسنا هذا لا ما هذا لا ما هذا لا ورك سدا بسم الله ما معمول كلام مرة قدومي أدوال واحدة وقدومي تفعوا هذا waxaan cadaynaynaa oo caalam muslim aan u bandhignay meedkaas u keenay Allah u naxariista الله شهر قريب Wallahi warsama abay la cilmi waxaan u keenay halkaas cadayn islaamka caalam muslim in la arko waxa dishay ciidamada كان كل حدا متكن تاعي bareeracad oo kas u dishay oo kama ahayn marxuumkaas ilaahay baa og annagana waan ognahay siyaasad ma gelin Allah u naxariista waa nin dhalinyaro oo 20 jir oo xoolo jir oo tuulada iyadoo degan oo cadaynayna oo ilaahayna ugu ummadana og tahay dhagta waa bariga daraa subaxay tuulada weerartay xabad u horeysay waxa ku dhacday Cabdullaahi Warsama abay aabihiis iyo laba nin oo kale oo dhalinyarana waa afduubatay oo ayadoo jijibisay oo garbaduub u xirtay la tagtay saddex gaari ayna wateen waa ciidamada DF oo Kenya waa cadayn meedkan waxaan ka soo qaaday 10 kiiloomitir meel u jirta gudaha Kenya oo kaalingo markii lagu baxo meesha la yiraahdo xuduudka Kenya 10 kiiloomitir meesha la yiraahdo Liverpool aan ka soo qaaday waxaan idin cadaynaynaa oo nabeen ku sheegaynaa oo ilaahay ugu dhawaanaynaa buumaha reebeen gobashi joodarina oo isku jiifay in sijaayadii inay ku qaadeen meedkina ay ku seexiyeen oo meel duur inta dhigeen gobashiisa asguriga ku jiifay inay ku qaadeen oo ku seexiyeen oo ugu tageen waxaan u sheegaynaa marka caalim muslim dawladda Soomaaliya bareeracad inay kiya maalin walba noo disho kuwa horaasaa nooga maqan waad ogtihiin oo ayaga oo mooto iska saaran oo xamaalta ay u dileen kuwa kale masaakiin oo shanjir ay naga dileen hadda koor waa ogtiin buusaar waa ogtiin maalin walba faafadhuun 10 ay maalin dileen waxa weeyaa waana banaysatay inaan jahaadna shirkadii hormuud ku ay ku dilaan waa ogtiin oo barxadan soo dhigaynay inaan jahaadno la dirno waxaanayna noo banaan male caalam muslim ma arka dawladda Soomaaliya ha aragta salaamu alaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh قريب نودون قريب bismillaahi rahmaani rahiim سفع أفكو دوي magacaygu waa Axmed Xasan Cabdullaahi waxaan sheegaynaa oon cadaynaynaa wax cadayn ka dhana weeye ninka hadda hortanada yaala oo meydka ah Cabdullaahi Warsame abayla weeye aabihii wuu maqan yahay laba nin oo kala la maqan waa wiilkii curudka ahaa waxa hadda meydkiisa aan kor taagannahay ilaahay baa qadar inna lillahi wa inna ilayhi raaji'un adduunyanaha ama gaar ahaan ummadda muslimka gaar ahaan ummadda Soomaaliyeed waxaan ogeysiinaynaa 24 saac dawladda Kenya dawlad ma han baleeyahay sideedaba waxa weeye waa burcad mid dalka u soo duushay waa ayaga dad dalkooda iyo diintooda iyo islaamnimadooda ay fiican tahay baan ahayn waxa weeye dawladda Kenya lagu sheegayo waxay nagu wadaa inay dadka naga iibsato line way ka baxday bad iyo bariba waa dadna yeeshay dawladda Soomaaliyeed waxaan u sheegaynaa haday ayaga nagu wareejiyeen oo noo soo direen oo inay yiraahdeen laaya hano cadayna madaxweynaha ummadda Soomaaliyeed ninka isku sheegay la yiraahdo madaxweyne Maxamed Cabdullaahi Farmaajo golihiisa wasiirada haday dal iyo dibad mid ka soo ay joogan waxaan u sheegaynaa wixii yaalla waxay indhaha ku hayaan weeye Falastiin waan ka darannahay waadna arkaysaan gumaad aan geedan noogula gabanin baa habeenii maalin lagu hayaa arag goosan ah oo dhurwaa uu galay baan nahay inta dambana haddaan laga soo gaarin way daba tiraysaa waxaan idin sheegaynaa wax idin dhiban oo dambe dooranaysan ma jiraan xuduudaha la soo buuxiyo ciidamada qalabka sida hal la keeno dalka hal la difaacdo dadkana hal hamba qabto assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh قريب وقاس ور محمد زين وديبه anigu xaali ila adaadana abayla cilmi wiilka dhintaan adeer u ahay 2016 waxay dileen wiil aniga aan dhalay gaalada ku dishay buusaar haddana shalay ay taariikhda 23 bisha sagaalaad wiil kala adeer u ahay dileen kii ila dhashay wiilka dhalina waa la tagay waana dileen oo marayna xasuuba waa socdaa marka wax beeshiisa loogu talagalay sidoo dagaalku u dhacay العداء وحسوق هركات وقتل قالين كل حسوق وبد صوماليات أو بيش قولك قد دكتا العداء هو 4 سنة هيا حسوق ودمي هاي هدي أي دولة لا دولة هذا سوق جارتا هدي مسلمين جيران مسلمين حنا قبتنا سوق عصام هايستو والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته
بس كوري بس ما يحضر هذا بقى بس كده ما بسم الله الرحمن كر هذا كر waxaa la yiraahdaa ani magacayga barra qorona ducaale waxaan kor taaganahay waxa aan la fiirin karin oo indhaha qaban karin oo bini'aadanimada ogolayn wax loo soo gurmanahay iyo wax la ogna ma jiraan shacabkii gedo waa kacay shacabkii gedo Kenya waxaan u sheegay maatallayska dawlad ma waa maatallayskaas waan iska celinaynaa gurmadna waa u baahannahay ma baryaytamayna bar dambe Kenyana way arki doontaa wixii aan sameeyna shacabka haddaan nahay gedo way arki doontaa anoola soo gurmado wassalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh ubaaskaan u dhiibaya بسم الله الحمد لله رب العالمين إنا لله وإنا إليه راجعون يا لنا وأركيسان ميت كان ماشي يلو نسال الوكسين بكية لما كنا نكوي تبقى بشي طبنات أبريل ودك الصومالي سوق شيء حدود الصومالي سوق شيء نكان وحوي ونكي كنت الإيوسديدات أو هذا ميت كأترنينا وتسوقية هاي أنت يدلين وأنا قرني سانو وحوي وعيمنا نبي رانت عمل صوب كل شيء لا وعدد يدقينيهن كونا لاين وعيمنا كي وملتري ويا نقماد عن لوكال هرين مرنا هن والله هن وجوكتا ينوها يان وحلنا هي مركا وحنوش هنا بيش عالمك دولة الصومالية يدرس كمسلمين وحن ماشي لو أركي سامي كان سوء نوع وياي هو كان عميد بهذا أنا كترين عيجنا ما هينو وحلنا هي مركا دولة الكية وإن لا دقنت هاي وحيث أمس ما يكمل هاي وحدود دقنت هاي وجودها صوماليا جوكتا مركا هنا أمس شعب كان علينا ترى شعب كان عيب ماته وحلق عادن كرامه وحاكم إذا ديارها ودقيتها كم إذا هم مارتوا كل ناس طور هاي وحاكم إذا هم تقانا كانوا يجي مارت شقاليه والبوس مسكين هاي والوك ما يقول له رجع ما تقانا جلجرت أو ما كان يدوش تان جلجرت ولا لاينا كم إذا سفرت كم إذا هم مارت كي سافر بديها أو دمعت سافر كم إذا نقماد عن لوكال هرم ويو وأركيسان أنا قاعد الشعب عن هاي وما كلا حاجة جوني ما عمر نمالي وحلنا مركا dadka waa raacaydi mas'uuliyad weey anaga waxaan raacid baan shacab baan nahay wixii marka hawlaha waxaan lahayn baltir weey anaga baltir ma shacab baan nahay marka waxaan leenahay marka anaga shacab madaan nahay shacab awoodiis waa garanaysaan anaga marka waxaan leenahay arrinkaas arrin naqafta maahan waa arrin dhibaato ah waa arrin faal weey islaamnimada kuma fiicna Soomaalida kuma fiicna darisamada kuma fiicna marka waxaan leenahay dawladda Kenya horta inta isdeedaad disho waay nooyma waxa la askadooka fadhi haraga jab بابا شعب كيسوالي وابا وراركا ما له والبابا حسان لو قد لها يا طيب ماذا حال ضغين هيا إنا لله وإنا إليه راجعون وروح حرام قولنا الله وروح حرام أو بدوريها كان الله وحده هالشيء أو بدوريها محمود ما فضلك أنا بني عوض عالم كي تدخلنا يا أخي درنا تاريخ سكان الوطن يا رب الليل ولا يرادو يدو هذا كل جيس ما مقنا صدق قف وكلام مقن ninka meedka ana shalay shalay galabtii baa la soo helay saddex qof oo kalena waa maqay dawladda Kenya waa la wadaagnay cidii geysatayna waa u sheegnay waxaan la kulannay shalay madaxdii degmada alwa Kenya ayagoo dhan ama military ha noqdo ama maamul ha noqdo antaba waa la kulannay waxaan u sheegnay sidii dadka loo laayay dadna in la laayay dadna ay maqan yihiin inay dhinteen in kale aanan war u haynin oo dadka saas yeelayna ay yihiin ciidamada Kenya waxaan niri si degdeg ah jawaab aan idinka helo waxay noo sheegeen inay haddii Ilaahay idmo oo ninkii DC-ga ahaa wuxuu yiri nimanka saraakiishii aniga ayaa isweydiinayno wixii khawaareedeen waa idin la soo wadaagaynaa sidaas darteed markaas saasna yiraahdeen
baan ka soo noqonnay bulshadii baan la wadaagnay wixii aan la kulannay ayaan u sheegnay haddana shalay galabtii waxaana la soo gaarsiiyey ninkii meedka ah in la helay waa la soo qaaday waxaa la keenay alwaq hadda waad arkaysaana meeshuu yaalo saddexda kalena weli ma hayo meel walbana waa gaarsiinay waxaan la wadaagay waxaan la wadaagnay dowladda Kenya intaba waa la wadaagnay marka caalamka iyo dowladaha oo dhan inay ogaadaan barnaamijkan inay ogaadaan oo qofkan hadda umeedkiisa aad arkaysaan xaqdarro lagu dilay dad kalena ay maqan yihiin marka insha Allah hadda qofkiina waa asturaynaa dawladda hidmo laakiin waa la wadaagaynaa dawladaha oo dhan laakiin gadoomi waxa uu cadeynaysaa inay ciidamada Kenya dileen oo cadeeyo dadka waa cadeynay ma jira hadda aan sheegayna in ciidamada dawladda Kenya ay KDF waa caddahay oo KDF waa caddahay taas iyada waana gaarsiinay meel walbana waa u sheegnay السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ما سيد. أبصر رمضان ودب. مايا شوف هذا عشان الله جوك. الله بحال هذا عشاوي. وبس هذا. هذا لا ما هذا لا ما هذا لا نيو بسم الله. ما معمول كلام مرة قدومي أدوار واحدة. وقدومي. تفعوا هذا. وعن عديننا وعالم مسلم عن أبن دقنا ميت كاسو كأني الله ونحرسته. الله شارك. الله ورسماء ما يلعن. waxaan u keenay halkaas cadeyn islaamka caalam muslim in la arko waxa dishay ciidamada kan kala xidhay mid kan taagan si bareera cad oo kasse u dishay oo kama ahayn marxuumkaas ilaahay baa og annagana waan ognahay siyaasad ma gelin allah u naxariista waa nin dhalinyaro oo 20 jir oo xoolo jir oo tuulada yaroo degan oo cadeynayna oo ilaahayna ugu ummadana og tahay dhagta waa bariga daraas subaxay tuulada weerartay xabadda horeysay waxa ku dhacday Cabdullaahi Warsama abay aabihiis iyo laba nin oo kale oo dhalinyarana waa afduubatay oo ayadoo jijibisay oo garbaduub u xirtay la tagtay saddex gaari ayna wateen waa ciidamada DF oo Kenya waa cadeyn meedkan waxaan ka soo qaaday 10 kiiloomitir meel u jirta gudaha Kenya oo kaalingo marka lagu baxo meesha la yiraahdo xuduudka Kenya 10 kiiloomitir meesha la yiraahdo Liverpool aan ka soo qaadnay waxaan idin cadeynaynaa oo nabeen ku sheegaynaa oo ilaahay ugu dhawaanaynaa buumaha reebeen gogashi joodarina oo isku jiistay isjaayadii inay ku qaadeen meydkina ay ku seexiyeen oo meel duur inta dhigeen gobashiisa as guriga ku jiifay inay ku qaadeen oo ku seexiyeen oo ugu tageen waxaan u sheegaynaa marka caalim muslim dawladda Soomaaliya bareera cad inay ka yamaan walba noo disho kuwa horaasaan nooga maqan waad ogtihiin oo ayaga oo mooto iska saaran oo xamaalta ay u dileen kuwa kale masaakiin oo shanjir ay naga dileen hadda koor waa ogtiin buusaar waa ogtiin maalin walba faafadhuun toban ay maalin dileen waxa weeyaa waana banaysatay inaan jahaadna shirkadii hormuud ku ay ku dileen waa ogtiin oo barxadan soo dhigaynay inaan jahaadno la dirno waxaanayna noo banaan male caalam muslim ma arka dawladda Soomaaliya ha aragta السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. شفع أفكروا المقعد محمد حسن عبد الله waxaan sheegaynaa oon cadeynayna wax cadeyn kadana weeye ninka hadda hortanada yaala oo meydka ah Cabdullaahi Warsame abayla weeye aabihi wuu maqan yahay saddex nin laba nin oo kala maqan waa wiilkii curudka ahaa waxa hadda meydkiisa aan kor taaganahay ilaahay baa qadaray inna lillaah wa inna ilayhi raaji'uun adduunyanaha ama gaar ahaan ummadda muslimka gaar ahaan ummadda Soomaaliyeed waxaan ogeysiinaynaa 24 saac dawladda Kenya dawlad baa hanbaleeyahay sideedaba waxa weeye waa burcad mid dalka u soo duushay waa ayaga dad dalkooda iyo diintooda iyo islaamnimadooda ay fiican tahay baan ahayn waxa weeye dawladda Kenya lagu sheegayo waxay nagu wadaa inay dadka naga iibsato line way ka baxday bad iyo bariba waa dadna yeeshay dawladda Soomaaliyeed waxaan u sheegaynaa haday ayaga nagu wareejiyeen oo inoo soo direen oo inay yiraahdeen laaya hanoo cadeeyna madaxweynaha ummadda Soomaaliyeed ninka isku sheegay la yiraahdo madaxweyne Maxamed Cabdullaahi Farmaajo golihiisa wasiirada haday dal iyo dibad mid ka soo ay joogaan waxaan u sheegaynaa wixii yaalla waxay indhaha ku hayaan weey Falastiin waan ka darannahay waadna arkaysaan
gumaad aan geedan noogula gabanin baa habeenii maalin lagu hayaa arag goosan ah oo dhurwaa uu galay baan nahay inta dambena haddaan laga soo gaarin way dabatiraysaa waxaan idiin sheegaynaa wax idiin dhiban oo dambe dowranaysaan ma jiraan xuduudaha la soo buuxiyo ciidamada qalabka sida hal la keeno dalka hal la difaacdo dadkana hal la hamba qabto assalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatu war maxamed diin u dhiiba anigu waxaa la yidhaahdaa dhaqana qabaa'ila cilmi wiilka dhintaan adeer u ahay 2016 waxay dileen wiil aniga aan dhalay oo gaalada ku dishay buusaan haddana shalay ay taariikhdahay 23 bisha sagaalaad wiil kale adeer u ahay dileen kii ila dhashay wiilka dhalayna waa la tagay waana dileen oo marayna xasuuba waa socdaa marka wax beesh